وهاجاك داود يلا هذا isku soo noqod wanaagsan marka ugu horeysa meel kastoo dunida ka joogtaan waxa aynu idin haynaa saddex muuqaal ayaynu idin haynaa muuqaalka koobaad waa safiir hore oo Mareykanka markaas safiir hore Mareykan weeye oo ka hadlaya Donald Trump inay xaaladdu aad iyo aad ugu liidato isla mar ahaantaasna xisaab qalad oo isku dhuftaday caalamkii oo dhan wuxuu arkaa Trump meesha uu taagan yahay iyadoo ka mid ah waa ka hadalkiisii khamaar ayuu ciyaaray nin khamaarana waa kii khasaara waa kan all makes me concerned because I don't see where the other side is. It's not that I have sympathy for the Iranian regime. As I said, I don't. The question is whether our objectives can be met in a reasonable way that leaves us better off. And that Iran ma taageersani ayuu yiri laakiin su'aasha biya kama dabcaanka Daniel waxa uu leeyahay waxa ay tahay yoolasheenii iyo wixii anagu muhiimka noo ahaa ma fulin karnaa mise ma fulin karno Trump xisaabtu isku dhuftaday waxay ahayd Venezuela oo kale mid ka weyn samee dabadeedna adigoo libaax banaanka soo istaag oo loo sacbinayo leeyahay wax madaxweynaha hore Mareykanka ku qabla uusan qabanin ayaad qabatay Iran ayaad ka takhalustay arrintaas ma muuqato xisaabta la isku dhuftana waa khalad khamaarana waa kii khasaara that is not clear. The war was supposed to be quick and easy. My sense of it is that the president gambled that he would attack Iran, decapitate its leadership, there would be a quick rebellion and regime change, and he would claim a glorious victory, a bigger version of what he achieved in Venezuela. Mm-hmm. Well, if that had happened, he might have bragging rights. haddii sidaas ay dhici lahayd oo Venezuela wuxuu sameeyay wax ka badan sameyn lahaa inuu meelaha durbaan ka tunto oo yiraahdo la ii alalaaso oo hala ii shido waa ii shidan tahay waxa xaq u lahaan lahaa ayuu leeyahay arrintaas lama hayo maalintii 26 ayay gashay dagaalkii la yiri wuxuu noqonayaa mid fudud oo degdeg loo soo gabagabeeyo 26 maalmood ayay sii marayaan xaaladuna faanoola fara kama qodno but it didn't happen. That's the problem. wuxuu ballan qaaday iyo wuxuu sheegay ma dhicinin ninka hadda soo jeeda ee hortiina waa John Brunner ninka la yiraahdo ee horay u haysan jiray sirdoonka Mareykanka ee CIA waxa uu sheegayaa Donald Trump dharbaaxa kulul inay ku dhacday oo asagoo soo jeeda dharbaaxa kulul looga soo gooyay beenna uu sheegayo isla mar ahaantaasna wuxuu yiri anigu hadday noqoto Iran iyo Donald Trump Iran baan rumaynaya warka Iran ayaa saxsan ayuu leeyahay oo runta u dhow Donald Trump wuxuu sheegayaa been cad oo meel loogu soo gambada aan lahayn ayuu yiri dhiiqada asagoo uu abuuray iyo dhibaatada meel uu ogaga baxay ayuu raadinayaa waana ku go'day ayuu leeyahay talada waa kala dhageyso tend to believe Iran more than I do Donald Trump because he degdeg buu hadlay Iran kugu celiyay just in case they ku dhaaftay waa kan mar kale war maxaa tiri that's the problem tend to believe Iran more than I do Donald Trump because he could not acknowledge the truth even when he's slapped in the face with it repeatedly and it's clear that he is xaqiiqada ma aqbali kara ayuu yiri iyadoo wajiga looga garaacay meeshaas weeye meesha aan u waday dharbaaxada xaqiiqadii ayaa wajiga looga garaacaya mana aqbali karo flailing right now. He's trying to figure out how he's going to get out of this debacle that he has created. And so he's going to make these claims about negotiations that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth in that statement. wuxuu yiri wuxuu leeyahay Iran baa rabtay inaan wada xaajoono oo nala soo xiriirtay oo rabta sida Mareykanku rabo in wax loo dhigo sal iyo raad malahan waa huuha iyo been iyo qusacbalaad weeyaan ninkan waa madaxii hore ee CIA-da Mareykanka tiimkiisii hore shaqeynaya kuwa kale oo kuwa saaxiibo la shaqeynaya xog fara badan ayuu helaya waxa uu leeyahay Trump inuu lagu yiraahdo Iran baa ila soo xiriirtay oo sida Mareykanku rabo wax loo dhigayaa oo lagu ku qanacsan tahay Iran ha dhageysanina waxaas hadduu ninkan waddan kale ka soo jeedi lahaa ama Iran dhinaceeda u jeeri lahaa wax la fahmi kari lahaa ayay ahaan lahayd ee gabadhan madowse u eegayso madowgu waa quruxa galo say u eegaysa eeg
waxa afkiisa ka soo baxaya iyo fariintuu diraya ayay fahansan tahay just like you waa kan marka la dhamaysto waxaa noo soo socda kii hore ee arrimaha dibadda Sir Alex Younger oo boqortooyada Ingiriiska MI6 nimanka la yiraahdo waa kan Who has the upper hand right now? Iran. yaa gacanta sare maanta leh Iran ayuu yiri waa taliyihii hore ee sirdoonka arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska halkaa asaga bareega igu hay waa u soo noqonaya oo ku mahadsan halkan aan ku geeyay haddaba warkan ayaa Iran soo saartay milatarigooda 12 daqiiqo ka hor xilliga barnaamijkan Brit Somali TV ay duubayso waxayna yiraahdeen ilaalada kacaanka milatariga dowladda dalka Iran waxay yiraahdeen Donald Trump asaga ayaa iskula jira negotiation iyo wada xaajood aan kugu celiyo Donald Trump asaga ayaa wada xaajood iskula jira naftiisa wada xaajoodna kulama jirno annaga iyo ayaguna weligeen gala looma samayn karno oo dad wax isla fahmi kara oo meel isla wax isla dhigi kara oo isfahmi kara malahan waxaynu isku nahay dab iyo badrool ninkaanu asagaa isla hadlay ujeedada hadalkoodu waxay daaran tahay annagu Iran haddaan nahay wada xaajood Trump kulama jirno mid dadban mid toosan mid qalloocan mid cirka u jeeda waxba kulama jirno ninkaanu asagaa iska riyooday suuqana la soo istaagay hana weydaarto dharbaaxaday ka kulushahay haddana weli waa soo taagan yahay oo wuxuu sheegayaa been cad oo qayaxan weli halkan Brit Somali TV kuma hor qofkan been buu sheegaya laakiin Donald Trump waxa la isku wada waafaqsan yahay been cad oo meel loo soo mara meel lagu gabado aan lahayn uu sheegayo xisbigiisa Republicanka dadka ka midka ayaa la isaga codeeyay oo taageersan waxbayaan war kugu daalin Sir Alex Younger ayaa ku soo deynaya laakiin intaan ku soo deyn daawadayaasha sharaftii kalaamada waxaan jeclahay inaan ku xasuusiyo haddii aadan Brit Somali TV ku taxnayn horey oodan u rukumanin fadlan rukunta saan idinkana waxba idiin sheegin annaguna tiradeena iyo tayadeena ugu faano bartaa joojiyaha igu hay iyo la daqsi loo xiro wayna adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya ku hadal keliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afar gees waayahay toos waxaynu u aadaynaa haatan waa mahadsantihiin Sir Alex Young ayaanu toos haatan u aadaynaa muxuu yiri waxa uu yiri gacanta sareysa Iran ayaa iskale waana ka xumaa inaan sidaas ilaahada ayuu yiri oo mowqifkaas maanta aan taaganahay dowladda dalka Mareykanku xisaab khaldan ayay isku dhufsatay ayuu yiri fursadii dahabka ay haysateen 2 toddobaad ka hor ayay lumisay oo fursadaas Iran ayaa hadda gacanta ku haysata fursadaas Iran ayaa gacanta ku haysata ayuu yiri Iran waxay muujisay adkaysi xad dhaaf ah iyo istaraatiijiyad cajiib ah afka ku dhageyso waa kana soo ka hadlaya aan ku sii daayo that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth in that statement. Who has the upper hand right now? Iran. I regret having come to this conclusion because, like many MI6 officers of my generation, we faced the violence and brutality of the IRGC for most of our careers. Just the Islamic Revolutionary Guards Corps. Yeah. So there is no love lost between us. And I shed no tears for Ali Khamenei, who was killed at the beginning of this war. But the reality is the US underestimated the task. And I think, as of about 2 weeks ago, lost the initiative to Iran. In practice, the Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They took some good decisions, actually. waayahay waxa uu yiri waa ka xumahay go'aankaas inaan gaaray ayuu yiri mowqifkaas maanta aan taaganahay aniga nimanka la yiraahdo ilaalada kacaanka la isma bakeen tusi karo oo generationka anigu aan ka socda ayuu yiri oo sirdoonka Mareykanka Ingiriiska ka soo shaqeeyay dabaya baasiin ayaan isku ahayn wax wanaag oo naga dhaxeeyay malahan laba cadow ayaan isku ahayn Khamenei dilkiisina hurdo u lumin maayo jacayl iyo wanaagna nagama dhaxeeyo laakiin Iran wuxuu u qiray adkaysi
iyo inay markaas qaadatay mowqifyo istaraatiijiyad ah oo bishii juun wixii ka dambeeyey ee sanadkii hore dagaalka lagu qaaday hubkeedii inay markaa qaybisay oo qolo walba hub la siiyey meel ka dagaalama la yiri gala dagaalka hawshu halkaa u socoto oo ay markaas ay muujiyeen ayuu yiri in ay fahansanaayeen waxa ku soo socda tabaabushaysi iyo qorshe milatari oo afka ka xiran iyo hadafyana dhigtay maraykanka dagaalkiisu hadaf ma laha ayaa la yiri dhinaca Netanyahu hadaf ayuu leeyahay iyo ujeedo Iran inuu maamulkeeda meesha ka saaro ayuu rabaa Donald Trumpna habba meel ayuu fadhiyaa oo hadda wuxuu sheegay 10 daqiiqo ka hor 10 daqiiqo kadibna wuxuu sheegayaa wixii wax ka duwan regime change ma rabnaa uranium kan rabnaa si degdeg inay isku dhiibaan oo bilo sharwada weeye capitulation inay sameeyaan oo isu soo dhiibaan nuclear ma samaysan karaan hormuus waa inay furaan hormuus anigaa ka talinaya ee ayatullah waxaas ayuu tahayaa laakiin Tel Aviv warkeedu waa cad yahay Iran waa cadowgeena inaanu xilka ka xayuubino ayaanu rabnaa haddii aanu wan ku guuleysan weynana ugu yaraan inaan ciidamadeeda iyo madaxdeedana aynu dilno hubkeeda iyo difaaceeda iyo weerarkeedana aynu weeqno warkaas mudo gaar u tuman wey waxa uu kaloo uu sheegay Sir Alex waxa kaloo uu sheegay Sir Alex waxa kaloo uu sheegay uu yiri dowladda dalka Iran waxa ay fahansan tahay kana faa'iideysatay ayuu yiri Strait of Hormuz iyo energy-ga ayay waxay ka dhigtay arrin global ah Trump wuxuu rabay inuu ayada kaligeed meesha ku hayo asaga iyo saaxiibkii Netanyahu asagoo obviously Netanyahu ma oranin inay meesha Iran lagu hayo laga takhaluso Iran dagaalkii waa ballaarisay farahu ka baxay fursadaas ayayna ka faa'iideysatay Iran waxay u tahay badbaado iyo inay badbaado ayaa ka go'an Trumpna dagaal uu dooq leeyahay weeyaan waa kan mar kale dhageyso as early as last June about dispersing their military capability and delegating the authority for the use of those weapons, which has given them significant extra resilience against this incredibly powerful air campaign. They have embarked on what's technically called horizontal escalation, i.e. firing rockets at anybody within range, which at the time, honestly, Shoshank, I thought was nuts, but in fact has been a very good way of putting in direct price on the US. Sort of worked. Sort of worked. Wayna u shaqaysay ayuu yiri. Waxa ay bilaabeen ayuu yiri dagaalkii lagula jiray mid ka duwan gantaalo ayay bilaabeen inay gobolkii ku garaacaan khaliijka ayuu ula jeedaa. Arrintan cirka ay ugu shareeraan Donald Trump wayna u shaqaysay arrintaas. And then they've understood the significance of the energy war and held the straits at threat and globalized and essentially not internationalized, just globalized the conflict in a way that gives them some weapons. So, they've played a weak hand pretty well. My second point is that Donald Trump has said some stuff that will have confirmed something they knew already, which is that they're in a civilizational war in their terms. They're in a war of existence. Donald Trump made it very clear that he wanted to see them up against the wall, basically, whereas America has embarked on a war of choice. And in those terms, I think that's imbued them with more staying power than the US and Why? وتريا رشد دونكا بورتويل إنجليز كسر أليكس يانجر MI6 كنيكي هيسين جري ويمدهر كهر حقوقاله كي كانوا كهر ريواء ركتينا FBI ظهري وهيستي جون برودن لبضا بوينو أرجع سيدي وهالضيان أمباسطور كينا وهارجلي دونالد ترامب داودي الوحل يسكوده وافقسين هاي حالده إنه ميل أدي اللي تأي مريسو أو كد كجورو قنجو جورو كجرو وحكى له أصاب حي وركلا أو مهمة لفتجيسو ninka la yiraahdo Steve Witkoff oo ah ergeyga gaarka bariga dhexe u qaabilsan Donald Trump oo xajoodkana kula jiray dowladda dalka Iran ayaa lagu soo waramayaa sida warbaahinta Mareykanka qaarkood ay sheegayso inuu asagu Pakistan uu tagay dabadeedna wiilkiisa oo cryptocurrency halka doonayay inuu markaa ganacsiga ka sameeyo soo kormeerayay isla mar ahaantaasna dowladda dalka Pakistan madaxdeeda qaar ka mid ah la kulmay ayay ka timid sheekada ku saabsan wada xaajood baa bilowday oo dowladda Pakistan baa tiri arrintan waa u dhaga nugulnahay inaanu ka ololeyno
aynu cimaamad nabadeed dhigno diyaar ayaanu nahay. arrintaas weeye arrinta Donald Trump uu la booday isla markiina wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Sharif ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Twitterka oo uu leeyahay markaas wadaxaajoodkaas inay Pakistan gasho oo soo gabagabaysa arrinta waynu ku faraxsanahay. intaas markii ay dhacday Donald Trump ayaa laftigiisa tweetkaas asaguna dunida la wadaagay, waxaana lagu taageerayay Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda ju iyo ja uma oranin. wararku intaas waxay ku darayaan Steve Witkoff inuu 2 jeer la soo xiriiray text message kula xiriiray Abbas Araghchi WhatsAppkiisa, 2 jeerna Abbas Araghchi ay text message-kii ay u dhacday oo labada tig ay u fuushan tahay laakiin looma jawaabin. hadda waxaan idinla wadaagnay warkii 12 daqiiqo ka hor soo baxay ee dowladda dalka Iran ilaaladeeda kacaanka ay yiraahdeen Trump keligii ayaa qarwaya isla hadlaya wadaxaajood laftiisa kula jira, we're not part of it. markii la weydiiyey oo la yiri yaad la hadashayna Donald Trump waa sheegi waayey. hoos haddaad aragtay waxaa ku qoran dowladda dalka Maraykanku in ay wargelisay Israa'iil inta Donald Trump wargeliyey qodobada Donald Trump miiska uu soo saaray ee dagaalka Iran lagu soo gabagabeynayo. waxaa la leeyahay ama ha loo sheego ama yaan loo sheegin awalba inay isugaayeen Maraykanka iyo Israa'iil waxba u kala qarsoonayn waa la og yahay oo Maraykanku uu u furan yahay albaabadiisu u furan yahay Israa'iil waa la og yahay leeyahay. laakiin waxaan marka horeba wadaxaajoodka ayaan sal iyo raad lahayn. maxaa dhici kara haddaba ikhyaaray? maxaa dhici kara? waxaa suurtagal ah ololaha ay wada dowladda Pakistan, Turkiga iyo weliba dowladda dalka Masar in lagu qanciyo inay Iran markaas ay miiska wadaxaajood ka timaado. laakiin Iran miiska waxay ku imaanaysaa shuruudo ay wadato oo marka hore la soo gabagabeeyey inta aan hadal bilaabanin. dagaalka oo la joojiyo, cid damaanad qaada inaan dib dambe dagaal uusan u dhicinin oo dhowr bilood kadib haddana aan lagu soo kicinin, iyo in la siiyo magdhow dalka burburka loo geystay iyo dadka la laayay. Iran waxa ay doonaysaa waa waxaas weeyaan oo ay doonaysaa inay kusoo shirtagto, kuwaasoo la furinina albaabka waxba furmi maayaan. Hormuusna in la furo Iran ma ogola oo shuruudo kale ayaa ku xiran waxyaalaha ay ku gorgortamayso oo ay rabto cunaqabatayntii abid ugu weyneed in laga qaado. haddayse waxba ay kulligii laga wada qaado, hadday waxarayaan wax yar ah oo Iran aysan u tirin in la gaarsiiyo. now ciidamadaada kala bax wada hadli mayne. Trump hadduu ciidamada kala baxo, Trumpna ay wada hadalka Iran ay tiraahdo wada hadalka kuma qanacsani oo shuruudahaygii lama buuxinin, Trump ayay xaaladdu jag ku tahay. hadday ciidamadu joogaanna Iran miitinka iyo wada hadalka geli mayso. mustaqbalka hadda ay sheegtay aysan qayb ka ahayn waa qodax Donald Trump marida kaga taagan oo uusan ka fariisan karaynin. marka arrimuhu sida loo malaynayo uma sahlana. dowladda dalka Pakistan ra'iisul wasaaraheeda Jawad Sharif ayaa la hadlay wiilka dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman una sheegay markaas inay arrintaas ay ka shaqaynayaan wadamada muslimiintana inay garab isa siiyaan ay daruuri tahay. sidoo kale waxa uu sheegay wadaxaajoodkaas nabadda lagu soo dabaalanaya inay dalkiisa uu ka shaqaynayo. waa war haatan soo dhacay oo isha marinayno. haddaba halkaas ayay daawadeen xaajadu ay taagan tahay maanta duhurkii. meesha ay u dhici doonto ilaahay unbaa og. intaas ayaan jeclaan kusoo gabagabeeyo. waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga mar kale. fadlan ku xirnaada Brit Somali TV si aan waxba idiin seeganin, anaguna tiradiina iyo taydiina ugu faano oo halkaas aan u dhigano koofiyadda barawaanigu xirto quruxda badan. waa idinka reer Baraawe.